علمي أجاسمه شبكة دربين كم تلفيس مجالات مقدشة دوان لوجود اللي جودها وطن كالصومالي كرهان مجالات مقدشة السودو كل سجل واحد كوجرا وليه الصومالي سجل دوان لوجود اللي مجالات كبهاري قبل كجدو حفلة waxaa kaloo qaybka ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee asad oo isagana maanta ay ku soo biirayaan ururka suxufiyiinta wadanka Kenya gudaha xafladahaasi kala duwan waxa ay ka dhacayaan magaalada Nairobi gaar ahaan hotelka caalamiga ah ee Barakat kaamiristu waa Cabdullaahi Afweene aniga waxa la yiraahdaa Cabdinaasir Maxamuud Cumar Seero xafladaasi oo quruxda badan dawasho wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرياش المدينة شرفتي قريتها مدرية كسر قلب قريب. حفلة اللوجو مصيّة برودين دوانها مجالات نيروبي ذلك كيا لوجو سميني. اللهم حريص يا دكتور علي إمام شرمارك أجاسمه إذا عدى ونفيق. يومات محمد علم أجاسمه إذا عدى كابيتال فويس. ودوان كبير ودي مجالات مقدشة كديد اللوجو يسي. السورة كلا حفلته حيكون سامسون تيورو كصحفيين تاودك كيا. oo isaguna qayb ka noqonaya ku soo biritaanka ururka isku taga suxufiyiinta ee asad waxa isagana ku jiray xafladda oo qaybka suxufiyiin ka tirsan ururka asad oo iyagana kaararka caalamiga suxufiyiinta riilkarka la gudoonsanayo ayadaha quraanka kariimka ayaanu ku bilaabaynaa waxa ayadaha quraanka kariimka noo akhrinaya fadilatu Xuseen Qaasim Sheekh بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. قصي أنا قد شعورتي كعمر في شق. حفلتنا مقام كلوجو سريع وكوس عبسية هاي بروديق راسي لوجوسو جبين اليوم بروديق دوانها كسرني مجالات النيروبي ذلك كينيا ولوس مني لبوري وعنك هاي بدها وطن كصوماليا جرها مجالات مقدشة دكتور علي إمام شرماركة يمهد أحمد علمي. أنت هاي النضات كلي جلين وحن كم ده هتذكر اسمه شغي علي ماري مهد أحمد علم الله ونحرسه دكتور علي ما شفارك أو كم ده سركيش عيدا كان ملتري الصومالية كابتن كاتر سركيش عيدا كحوض ضلك الصومالية الصومال كان كم ده يعني أنتي فرقتريس كهاي هنتي ده فرحة بدنا يدولد الملتري وجب حديثي وخلاص بروح بروش وحكوس وبطيئها سركيش لنا عم دافع دكتور تمام تلرجع سردي يوجد بيحلق الدولد الملتري نوح أو سركار كاتسن qaybtii koob iyo labaatanaad ee bartamaha waddanka Soomaaliya sanadii ugu dambeeyay waxa wax ku soo bartay waddanka Kanada oo shahaadada dhaqaalaha dhinaca masterka kaga soo diyaariyay halkaasi Mahad Axmed Cilmi sidoo kale waxa uu agaasimay idaacadda Capital Voice waliba dadkii sida gaarka ugu ooleeyay inuu noqdo agaasimaha idaacaddaas ayaanu ka mid ahayn aniga iyo Sumi Siciidta iyo asxaab kale haddaba xafladii oo noo bilaabanaysa isla markaana marti aad u fara badan ay diyaar ku yihiin sida agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Mudane Xasan Ciise Cali Kuuriya kasoo mas'uuliyadii sana waxa uu ka mid yahay barbaariyaashii suxufiyiinta halkaan isugu timid oo badankood halkaan ay wada joogaan isla markaana khabiir 40 sano ku soo dhex jiray howlaha warfaafinta xafladda waxaanu ku bilaabaynaa warbixin kooban oo halkaan uu ka soo jeediyo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta waddanka Kenya
sarkaalka lagu magacaabo Ismaaciil Sheekh Cabdiraxmaan Xasan. Ismaaciil waxaanu siinaynaa daqiiqad 2 daqiiqo Yuusuf Qaban. الله وبركاته. أفضل الصلاة waxaan idin sheegayaa inaan ku biirnay ururka suxufiyiinta ASOJ anoo ku hadlayo magaca suxufiyiinta Soomaalida Kenya Ismaaciil Cabdiraxmaan Xasan. haddaan dib ugu laabto ururka suxufiyiinta Soomaalida Kenya wuxuu soo qabtay howlo aad u tiro badan. waxaa la aasaasay 2007 bishii 3 ayaa la aasaasay. ururkani wuxuu soo qabtay dowladda Kenya ayuu wuxuu ka qaatay registration. wuxuu kaloo sameeyay ururkan talaabada kale uu qaaday informationka waxda informationka dowladda Kenya ayuu warqad ka samaystay oo aqoonsi buuxa ayuu ka haystaa waddankan inkastoo ay u dhimantaa work permit wax la dhaho. next ururka markii uu arkay duruufaha jiro iyo dhibaatooyinka jira ama suxufiyiinta tirada badan ee waddanka ku soo qaxday maadaama uu diiwaan geliyay saxafiyiintaasi wuxuu go'aansaday in uu ku biiro suxufiyiinta ururkii suxufiyiinta ee hore u jiray ASOJ uu hogaamiyo Daahir Cabdulla Cali. maadaama ururka uu intaasoo howl uu soo qabtay xafiiskiisana uu ka furayaa Sunrise Shopping Mall D33 ayaa haddana waxaa carqalado buuxo uu soo maray suxufiyiinta Soomaaliyeed ee waddankan Kenya ku nool ayaa wuxuu kala kulmay carqalado aad u tiro badan inkastoo uu hadda aan dhihi karno uu ka soo tallaabsaday carqaladihii iyo dhibaatooyinkii jiray wixii jiray lagu dhameeyay is-afgarad iyo wada shaqayn buuxda. haddana wuxuu ururkani u barardiiqayaa wariyaashii lagu dilay Muqdisho Gedo iyo kuwii lagu xiray waddanka gudihiisa khaasatan magaalada Muqdisho. waa mahadsantiin. daqiiqad iyo 2 daqiiqo Ismaaciil Sheekh Cabdiraxmaan Xasan gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gudaha waddanka Kenya. iminkana sidoo kale waxaan ku soo dhawanayaa suxufi ka tirsan idaacadda Iqra isla markaana qaabilsan dhinaca fayeenimada ee ururka suxufiyiinta waddanka Kenya Marsuul Qulle. adiguna waa daqiiqad iyo haaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلامتي المدن يا لمريوين وحشرف وين ما أنت إنه إن المركزي سلامك أنا أنا دي غلصو قبل كلا حفلة الله سمينيو أصحابتي إن شركة اللي قد لي كدعي مقالة مقدشو تعسيبا قد لنا دمان صحفيين الصوماليات ميل كستوري شوغان وأنا قاعد أفرح سنة هاي إن سيدو كليتو أن أركو وريال فربلان أو الصوماليات oo iyagu loogu bartay inay ku sugnaadaan 16 sano ay ugu dambeeyay magaalada Muqdisho inay soo gaaraan magaalada Nairobi oo maantana xafladan ay nala fadhiyaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. assalaamu calaykum. hore oo isaguna mas'uuliyiinta ka tirsan ururka isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ isla markaana wakiilka ururkaasi ee gobolada Jubbooyinka ayaa isagana waxaan leeyahay farxan hadduu waa 1 daqiiqo. والسلام يا ضمان كسوق الكرياشة كلك بروديق ذا تلتي حفلة ما لما ديكر وبروديق وأنا كحناي أنا وكوه الليا مجا سحفيين تا الصومالية ملك السوا يشوغان ولا لهن جارهان أن وليبا سكو بروفيشيكا أما سكو قبرة جار كأن واي تلتي ونحدين بياهيد مروجله فرصة ذا يانوه اللي ما أنت أوروك أسوج إن أوساق من قبل مناسبة هذه هذا بروديلا رجع سولالة ذنها أحمد إيمان شرماركة إيوه علي إيمان شرماركة سوري إيوه مهد أحمد علمي الله ونحرسه نحرستي جنة الله سيو عنك قدرنا يا دشي سلوا كلا وريها كلا إسنا الوجود لي نواحي تولد إيسو ضد واحد على وقبل كجذا لكن معها وقبل كباي الناس واحد اللي صحوا إيسو وحيود حيسا تولد أفرو يمجال باردين سيدا سي وحيكوتها قبل كباي وريها سنة آديات أيان السجن وقبل حنا يعني ترجمة يكون هذا يعطك سعفيته إلهي السجن نحرستي جنها السيو أنت كنا وعنتي الله كعشو ضمانتنا الله ندبادي. السلام عليكم. الله هو بركاته. sanadihii u dambeeyay walow hayaan fara badan uu dhacay oo wariyaasha inta badan ay dalkii ka soo hayaameen ama barayfada u shaqeeyaan ama dowladda u shaqeeyaan. haddana xasan sheekh axmed cadde waxa uu ka mid ahaa wariyaashii ugu dambeeyay oo hanafii ka shaqeynayay
muddadii xasaaradaha ugu kula ay ka jiraan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xasan sheekh axmed cadde ayaan mikrofoonkan siinaynaa 2 kalmo 3 kalmo inuu halkan ugu soo jeediyo maadaama uu ahaa raggii ugu cadcaddaa ay sidaadka ay isugu dambeeyeen isagii mas'uuliyiinta shacabka waan salaamayaa saxafiyiinta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadan ama baroordiiqdan runtii loo sameynayo agaasimahaygii idaacadda Horn Afrique Allah u naxariistee cali iimaan sharmaarke iyo saaxiibkaygii qaaliga ahaa ee aan muddaba wada shaqaynaynay isku meel xitaa aan ku cuntayn jirnay runtiina aan weliba daris ahayn oo maaragtay 2 guri oo iska soo horjeeda oo xaafadda laba dhex ka tirsan ee degmada Hurdhigley aan wada deganayn oo weliba aan isleeyahay xilligii uu ka baxay gurigiisa runtii dadkii maaragtay wada sheekaysanayay wada kaftamayay ayaan ahay laakiin xaqiiqadii waxaa markii saacad laga joogay ii soo yeertay nin inuu telefoon iga soo diro maaragtay isbitaalka Madiina oo ii sheego isagoo oranaya ma xasan oo mataqaanaa mahad baa maaragtay la dilay oo hadda la keenay isbitaalka Madiina waxay ahayd naxdintii iigu weyneed runtiina i dhaxal siisay in aan markaas halkaa ka soo tallaabo qaado waayo aniga ma jeclayn inaan dalkii ka soo tago gaar ahaan magaalada Muqdisho markii duhurnimadii haddana la dilay agaasimahaygii cali iimaan sharmaarke xaqiiqadii markaas anugu kulliba dadkii godka wax ka tegay ayaan ka mid ahaa dadkii isbitaalka Madiina wax ka tegay baan ka mid ahaa runtii markii la dilayay inkastoo xilligaasi ka hor dhowr daqiiqo ka hor aan ka soo tegay haddana baabuurkii aan saarnaa inta aanu soo gaarin idaacadda Horn Afrique ayaan qarax maqlay kadibna telefoon baa diray kadib waxaa la ii sheegay in agaasimihii idaacadda Horn Afrique uu geeriyooday naxdin kale ayay noqotay xaqiiqatan markaas waxaa go'aansaday in aan gacmaha xoogaa ka taago idaacaddii waayo waxaa ii soo dhacaya telefoonno aada u tiro badan oo waxay oranayeen xasanow waxaad tahay ninka saddexaad ee la qaarajin doono marka dadku marka telefoonada ii soo dirayaan naxdin bay u sii beerayeen waayo qof kasta oo soo wacaa ama dibadda ha ahaado oo dadka satellite-ka naga dhegaysan jiray ama dadka gudaha joog ha ahaadaan qof kasta oo soo waca wuxuu ku leeyahay warheedhe meeshaan see u joogi karaysaa waxaad nala socotaan magaalada Muqdisho xaqiiqadii haddii maanta lagu dilo dhinaca loo saaro lama arko wariyaashuna ma haystaan qoryo ama waxaa loo yaqaan cabdibalayaal nin walbaaba asaa iska soo lugeeya suuqa u yimaadaa rikoorkiisa wataa waxaa munaasabadaha u tagaa marka haddii marka aadan marna ku nabadgelaynin waddankaagii gaar ahaan caasimadii Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa markaas waxaa timid in wariyaal badan runtii ay ka niyad jabaan ka shaqayntii warbaahineed ee dhinaca magaalada Muqdisho waayo haddii aad cabsato tusaale ahaan intii aan waday barnaamijkii dhacdooyinka oo aan filayo in badan in dhagaysan jiray waxaa dhici jirtay marka barnaamijku uu soo geli rabo in telefoon la ii soo diri jiray telefoonkaasi ma ahayn telefoon soo baxaya ma ahayn laakiin waxaa la dhihi jiray xasanow mar qarax baa dhici doona qaraxaas dhacaya waa inaad sheegtaa haddaad sheegi weysid adiga waa marka waxaan ku qasbanaa 5 daqiiqo ka bacdina waa dhici jira qaraxu laakiin qofkii soo wacay ma wici karaynin oo lambar muuqda igama soo wacaynin ama lambarka uga soo waco haddii aan mar kale waco oo macnaha markaas waa dansananay waxaa kaloo jirta iyadoo barnaamijkii dhexdiisii aan wado ayaa waxaa dhacaysa anoo ka sheekeynaya qaraxa halkaa ka dhacay ama saa waxu dhaceen nin ka mida xubnaha dowladda ama maamulka gobolka ayaa ku soo wacaysu ku leeyahay war arrimaha security-ga ha ka hadlayso kuma dhib maxaad uga hadlaysaa tallaabo sharciyaan kaa qaadaya marka labadii dhinac kan haddaad qaraxii sheegi weyso oo aad weysa qaraxaa dhacay halkaasaa la weerar haddaad dhii weysid masaakiin iska socdaa tahay oo qoraysanin madaxaa lagu dhufanaya haddii aad maaragtay ka sheekaysana ninkan wuxuu ku leeyahay waay dadka qaxay aad u sheegi waay aad u sheegaysaa macnaha meelo loo weerar see u dhihi kartaa arrimaha security-ga see u hadli kartaa waa noo tahay tallaabana kaa qaadaya runtii hanjabaadii ugu dambaysay way soo gaartay
ma intaan la dilin mahad iyo cali iyo maan toddobaad ka hor ay soo gaartay oo la iga digay oo weliba la yidhi idaacaddii waa xir weynay waxaa kaloo la yidhi muxuu ahay oo bareeshar caalamkaana fuulaya waxaa kaloo la yidhi haddaan wariyaashii xirnana bareeshar caalamaana fuulaya sidaa daraaddeed annagu ciddii wariyaa ee xadgudubaan ka dareenno madaxaan ku dhufanayna soo ma fahmin marka waxaan dhihi karaa runtii suxufiyiinta soomaaliyeed ee hadda joogta magaalada muqdisho runtii geesinimay ku shaqaynayaan oo waxay arkaan in waddankii aanay ka tegi karin meeshiin ay ka shaqayn karaan runtii dhammaanteen waxaan tacsi u diraynaa runtiina suxufiyiinta waxaan aad ugu faraxsanahay in maantay dilalkaas dhacay inay isaga yimaadaan waxaan u malaynayaa oo markii saddexaad markii afaraad oo barordiiq noocan oo kale ah lagu dhigayo magaalada Nairobi waxaa lagu dhigay meel walba dadkuna waa isweydiiyeen marka dhammaanteen waxaan isugu ducaynaynaa ilaahay xal ha keeno soomaalidana runtii ilaahay ha mideeyo dowlad cadaalada oo maaragtay iyo nidaam cadaalada oo wax ka qaban kara dhibaatooyinkana ilaahay ha u keeno oo ka tirsanaa wariyaashii honorfiga magaalada muqdisho hadalkiisana waxaa nooga dhadhamayay dhari labada dhinac ka gubanaya laakiin waa laga baxayaa mushkilmada sunni siciid saalax ayaa isagana waxa uu ka mid ahaa wariyaashii idaacadda capital voice ama codka caasimada ee magaalada muqdisho oo isagana muddo dheer la soo shaqeeyay allah u naxariistay mahad axmed xilli sunna ayaan isagana waxaan leenahay kelmad laba kalma haddaanu ku badana saddex kalma iyo bar maasantihiin waan kaga mahad celinaa waqtigiina qaaliga ama fursaddiina qaaliga soo siiseen xuska ama munaasabadda lagu xusayo laba nin oo qaali ku ahaa idaacadda Horn Africa ama Capital Voice ha ahaadeenba cali imaan sharmaarke oo madaxdeedii ahaa iyo weliba mahad axmed cilmi oo isna madaxdii idaacaddii aan ka shaqeynaya muddada badan runtii ka mid ahaa inkastoo aniga magaalada muqdisho ay muddo 4 bilood ama 3 bilood ku dhawaad ay ugu dambeysay oo haddana markii idaacadda la duqeeyo Horn Africa aan ka tegay oo magaalada Hargeysa aan ka haddana aan ka imid runtii xusuus badan ay igu leeyihiin labadaasi nin oo cali imaan iyo mahadba oo muddo fara badan aan isla soo shaqeynay runtii naxdin weyn ay igu ahayd in aan maqla geeridooda weliba wax lama filaan ay igu ahayd wariyaa la dilayaa runtii ama sidaas oo kale dhibaato sidaas oo kale loo geysanayaa runtii wax naxdin weyn mana filin runtii dhibaatadii igu horreysay aan kaga soo tagana waxay ahayd markii ama idaacaddii la xiray ama qaar ka mid a wariyaashii jirdil ama xiritaan lagu sameeyay ayay ahayd markii magaalada muqdisho aan iskaga soo tegay kadibna intaa imid runtii wariyaal badan baa igaga soo horreeyay meesha hadda aan joogay ee magaalada Nairobi oo weliba ka soo cararay dad badan oo asxaabtii Horn Africa aan ka mid ahayn Cabdullaahi Jaamac ka mid ahaada ama Seeraha ka mid ahaada ama Xasan Cabde oo isagana in muddo iga soo horreeyay magaalada Nairobi hadda iga hor yimid baadan runtii dhammaanteenba waan ka wada calool xunahay ama aadaan ugu niyad jabsanahay dhibaatadii soo gaartay ilaahayna waxaan ka baryaynaa bal xal ay ku badbaadaan ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanteeda ama xagga baxda saxaafadda haddii ahaaleedba ilaahay ha keena ayaa leenahay waan ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga balantii waad ka soo baxday sunni waa xubyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ASOJ wuxuuna soo maray magaalooyinka Kampala Hargeysa Addis haatan wuxuu nala joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya gacmo furan iyo waji faraxsan ayaan ku soo dhaweynaynaa Cabdirasaaq Xaaji Catoosh in badan baa BBC ka maqashay laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC-da barodiqa marka la eegana wariyaasha kulli barodiqa ay awalna ama ha ahaado agaasimo guud ama ha ahaado wariye caadi ah BBC ka tirsanado Catoosh waxaan siinayna kalmo iyo laba kalmo waxaan u imid inaan ka warramo barodiqa laakiin ka warran haddii la idhahayadana xal kale laakiin way mudan tahay laba qof oo qaali aan waynay wariyana waa un isu ehel meesha joogo waxaan u malayaa mahad ma aqoonin inkastoon cali aqiinay geeridiisa internetaan ka arkay duhuradii labada duhurnimo anoo xafiiskii fadhiya yaa xaafad guriga telefoon laiga soo diray inaan gurigii qof ka qaado shopping geeyo gaarigaan soo qaatay anoo mahad geeridiisii niyad iyo taaganta yaa haddana waxaa la yidhi ka soo noqoshadii aaskii mahad yaa cali imaan la dilay gaarigaan waday telefoon aynan igu sheegay qofkii la socday oo reerkanaga ka mid ahaa oo qof dumar ahaa yaa dareentay in telefoonka message-ka la iigu soo gudbiyey mid murugale ay tahay habreetay ahayd maxaa dhacay dhahday habaryar waan u sheegay saakana wariyaa la diray wariye soo aasay wariyahaasna haddaa la diraa iri markaas waxay ugu tiri oo habaryar idinkana dadka la dila qayb maad ka tihiin marka hadalkaa habaryartay aniga igu tiri laakiin waxaad moodaa message Soomaaliya dhan gaarsiisan ay gaarsiin karto inay tahay oo wariyaha laftirkiisa dilka wariyo in asna la dili karo taa waxaan ku keenay
ninkii iga horreeyay halkan ka qudbay wuxuu yidhi ilaahay soomaalida dhan xal u keeno taa micnaheedu waxaa weeye wariyaashana soomaalida halka loo raadinayo ee qayb ka tahay waad mahadsantihiin waxaana moodaa soomaalida waxay tiraahdaa geerida waxay ku fiican tahay nimaadan aqoonin iyo geel jire laakiin markii walaalka ama mid ehel kula ahaa ama kula bah ahaa ama microphone kula watay ama wargeys kula qorayay ay taabato adna waxaad dareemaysaa kan kale soomaalida maanta waxaa la yidhaahdaa ninka ugu shakhsiyadda xun waa qofka qoriga wata wuxuusan qoriga u wadanana aan garanaynin marka in geeridii nooc walba haatee ay miisaankeeda leedahay waad mahadsantihiin qolyahan soo qaban qaabiya xafladana waan u hambalyaynayaa xoogaa kuma talagelin wariyaashana waxay ku fiican yihiin aan la yidhahdaa xasan caddoon aqooneen baa haddaa iga horreeyey markaan soo galaan codkiisa tijaabiyey alla ilaa waa ninkii hon afrika dadka qaaliga ku wareeriya erig marka waxaan ku fiicannahay inaan idaacadaha ka hadalno raadi una laga dhegaysto laakiin haddii meel nala soo istaajiyo xoogaa wamaasantiin anyway waxaan ehelkii ay ka dhinteenna ilaahay bedel khayr qabo dee bedelkoodii maba helayaan laakiin ilaahay ha uu boogadhayo annagana samir ilaahay na wada siiyo amiin afka soomaaliga idaacadda BBC-da waxayna caddaynaysaa xanuunka ka dhashay dilka loo geystay Dr. Cali Imaan Sharmaarke iyo Mahad Axmed Cilmi inay taabanayso qof kasta oo Soomaaliya oo wadanaya gaar ahaan wariyaasha meel kasta caalamka ay ka kala joogaan xafladda waxaa naga soo qayb galay fanaaniinta hore ee qaranka oo iyaguna dhinacooda qaybka dalka inay ka soo hayaameen fanaanka weyn Cabdi Cali Bacluan kooxda wato ayaanu ku nasanaynaa qadar music ama heesa ka bacdi khudbadaha noo soconaya u sheegnay hoy Soomaaliya hoy alnahar abaabo farabada nabad lagu aado
magaalada Nairobi yimid la baxay cabdiyar intaasi aanu ku dhaafno maanta waxaan ku soo dhaweynayo khudbadaha inoo socdaan gudoomiyaha ururka Soomaaliyeed isku taga ee asooja mudane Daahir Cabdulle Cali Sow oo kaalin muuqata oo ku dhaca qabanqaabinta xafladda Daahir Cabdulle Cali Sow daqiiqada laba daqiiqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً كتسجيلياشا أجاسبها جود وسارده وفافين تدولة فرنك ملجاركا عصنا على كوريا أو أبي صحافة صوماليا. وعم فرحنا حسنا ورسول الله قال حفلة وحسنا كفر حسنا هنا رسول الله قال الجارية ده ذلك كي صوماليا وقوية جود ظاهر على قاسم قدوميها ganacsatada maxamed xuseen wate gudoomiyaha ururka suxufiyiinta dalka Kenya Ismaaciil
sheekh cabdiraxmaan iyo hobolada waa beri aasaasahoodii cabdi cali bacalwaan intaas kadib xasan guulad abdoon allah u naxariistee madaxweynihii dalka jabuuti ma ahayn nin qaa'inaha taariikhda sida u gashay wuxuuse ku eeleeyay hantida qaranka u dhici jirin hase ahaatee hoosjoogayaashiisu hadday iska qaataan hadal badan kama oran jirin ibraahim garle allah u naxariistay oo ah ninkii hal abuuray riwaayadihii geedigii koowaad iyo labaad saddexaad madax banaanidii dalka jabuuti yaa wuxuu yidhi waxna dibadda maad dhigan docna kuma yaalaan kolkaa daacad baa tahay haddana daawadaa tahay wala daacad baa toogi wuxuu wadan lahaa madaxweyne waxaa dibadda soomaa dhigan meel kale kuma yaalaan haddana daawadaa tahay wala daacad baa tahay waxaan uga leeyahay arrintaas weriyaashu iyo ganacsatada warbaahin samaysatayo dhibaato xoogana hayso cid kastoo disha cali imaan sharbaake iyo mahad ahmed cilmi way ogyihin way yaqaanaan haddana inay sheegaan doonayaan ka war arrintaa ka warrama haddaan la sheegin ninkii dilay cali imaan sharbaake allah u naxariistee oo ahaa runtii haliyey saxaafaddii soomaaliya dib u soo dhisay oo madax banaanida jaraa'idka ee geeska afrika la loo siiyey muqdisho haddaan la sheegin ka war ninkii dilay berina mid kaloo dilayaa xasan caddo waa cabanayaa la ku yaqaanay ka dilay cali imaan sharbaake inuu sheego ka baqanayaa waxaan rabnaa in si aan u gaadhno horumar aan sheegno cid kasta oo disho qof journalist ama ogeysato allah u naxariisto waxaan marka hore codsanayaa inaan faatixada u akhrino cali imaan sharbaake mahad axmed cilmi iyo weriye maxamed kaskey oo ka tirsanaa idaacadda maandeeq iyo radio banaadir ka madax bannaan ee soomaaliya gaar ahaan maamulka telefishinka universal iyo idaacadda frontier FM ee dalkan Kenya oo noqdeen horseed iyo astaan u taagan madax banaanida jaraa'idka iyo dhaxalnimada saxaafadda looga baahan yahay runtii waxaa aan aad u jeclahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka meelgaarka xasan cali kuuriya aabihii saxaafadda si uu u guddoonsiiyo 3 weriye oo ka tirsanaa sooj kaarka loo yaqaan international price ee ridkaarka ah ku soo dhawow kana dheh khudbadaha inkastoo aan jecelnayn kasoo qaybgeli doonto xafladda farsiin ama xaaji osugi أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مناسبة عن سجون نبي ومعلمها كذا عيسى قيمة كل دون وها برودير ده الحقيقة كذا عيين مجال نيروبي كلي أو كم كومني ميل بدن بيكد عين سيدا داوني سين هبينا دويد قايتا في إنجليزية إذا عدا تلفزيون كشاشة اللي هذا الجزيرة عمر أي سيجوكتا وجسي ديني برودير لا تلاميذا وحلقسي ديني يونيفرسال وحلقسي ديني الجزيرة في عربيتك runtii idaacado badan oo kala duwan oo caalamiya iyo ururo badan oo caalamiya oo ay gacansaar leedahay idaacadda Hoon Afrika ama ururo saxaafadeed oo ka jira dalka gudihiisa ayaa iyaguna barodiiq intaa la eego kale ka sameynay marka anaga kaliya naguma koobnayn aan iraahdo marka munaasabadan aan iraahdo waxay noqon doontaa gogolaadkii بروديغلا أنو سميني نلغي شخصي قالي قاعد نغني الجولات يعني مركان دينا عكلة دي بقول نقضو كنتي علي إيمان يو مهد أحمد علمي لبدو وانا كان مهد أقوم تيدو اسكوية بي برنامجي بقبطي ورئيسوي قاضي ما فديا تلو عبد الله ما فديا ها حاجة دمبوك عن تكتاجية وهاي سك فديا بادي أردن هون أفريقيا هاي سك فديا عبد الله لو قاعد يسوي
وياي علي إيمان markii aan 2001 ku soo laabtay Soomaaliya oo anu markii la qaxay oo dagaaladu ay ka bilowdeen magaalada madaxda waqooyi baan joogay 2 sanadood iyo bilo ayaa cayaaru naga dhex socday marka wareeg cusub oo markaas carabtiisii qabo oo dee bilaabanaya ma aanan geli karin ba annagoo meeshii joognaa Muqdisho lagu kala baxay halkaysa dhex fadhinaa ayaa xamar lagu kala tegay markay sidaasi dhacday oo arlada la kala yaacan noqotay Ethiopian galay 11 sano iyo 8 bilood baan joogay howlaan ka soo qabtay shaqadeydii aan aqaanay la xiriirta anigu isuma haystaa dayna madaxay madaxnimadu waa magac umadileeday wey walbu dhiibaya baroo laga qaadaya laakiin mihnadu waa mid aad adigu leedahay waxaan rumaysnahay aniga soo gudka aado maanta laakiin inaan wariyahay wasiir haddaan ka noqday inaan wariyahay baan aaminsan marka maruu cabdinaasir seer hadayo haddaad tiri inkastoo uu dee iminka madax yahay waa wariyenimadaasa horta sidaa ugu qanac weli bahlan ninka tirsan baaran علي إيمان حلقة إساقا بشي أوغوس 2002 أيو تليفون يصدري ما جرني قرشو بود أو عيدا ماذا حلي هوري وقت هوري أو سركاري يرها وانكو أغاني كدي منوان أغا إنو هذا مريكن كي إساقو تشوغا خادم كي بربري كدي منو كندا قالي لكن ورد بكلمان نانهي markii horena dad isoo jeeqaanaan mahayn laakiin dad isdhexgal leh maan mahayn runtii bishii August ayuu wuxuu ii soo diray 2 nin oo aan saaxiibnahay oo idaacadda Horn Africa shaqeynay waan u tegey oo 2001 subax baan israacnay waan ballanay inamadii Xuseen Quryooley iyo nin la yiraahdo Cabdullaahi عبد الله على أفرح يوحي صدري إن قريولي ونسوني ونسوتكني ويقعد سري إن برنامج دودولاك اللي رادو بحيل جالس السعودي عن كقبته أفر معلومات إذا عدى وحبا بارمكو على الله كذبوا مكابرين متأكد ساتي معنا وعن نظام كي شرعي أي كل شيء سيادو إيجاي وحبنا نيسا عن كون هذا متأكد وحنيجي سومالي دو مركا يالتو حول مهنا ليس ميستو أنت بدن واحد مدة إن استاندر كمقايدها يو محاي بقارة لقضاء الراشين كلا دقوا إن بدنينا نكتبوا أنا نبغى مدة وحنيجي بالهرطة شركة هون أفريق وأنا أركو وحقبت كذي أنا أركو إن الوجادو قاب كايكوش كايس إذا على كلام مرتاح صار وعيسى بحي نمان نيران يو قاب يشرعي يو كلادمبين يو wuxuu tegsan ku shaqeynaya ay soo baxay waxaan qaatay markayna ka dhex shaqeyn karo cali ninkii kontaraaga aan wada galay buu ahaa muddo markaan shaqeynayay kadib waxaan isu soo raacnay Nairobi waxaan isugu nimid Eldoret shirkii halkaasaan muddo wada joognay kadibna xilkii shirkadu lahayd baan igu wareejiyay Soomaalidu waxay tiraahdaa jid ma wada marteen jabad ma wada degteen sidii ma wada cunteen baa rag la isku bartaabay intii waanu ku kulan cali runtii shakhsiyad qaali waxaan ka waraystay wixii ku kalifay in isaga iyo saaxiibadii ay shirkadan abuuraan oo 99kii ay ka dhex furaan xamar iyadoo aad ogtihiin xaaladda lagu jiro wuxuu igu yidhi xasanow haddaan loo samayn sacrifice oo annaga iyo ilmaha iyagu nabad baanu haysanin Canadaan ku noolay
aan ummaddan loo gelin waxaan ogahay inaan maalinta shay maalinta dhimanay mar haddaan taa ogahay tadxiyo ay ummaddaydu dhibkay ku jirto ay kaga baxdo anaan kagala qayb qaato inaan ku dhex noolaado iyo inaan dal nin shisheeye ay dhistay oo dhaldhalaalaya raaxadiisa dhalanteedkaa dhex joogo oo aan kollay ninkaan hay ka ahay teelaa macno badan hadal qaali oo itaabtay buu runtii wuxuu ahaa asaga iyo saaxiibyadiiba rag halkankaa u soo diyaargaroobay mahad axmed cilmina inaan dhalinyaro ah oo intii anugu aan idaacadda Horn Africa ka tegay kadib ku soo biiray laakiin markaan xamar ku noqday oo aan shirki ka tagnay aan ku bartay runtiina dadaal iyo firfircooni iyo qofnimo qaali ay ka muuqatay buu ahaa laba qofood oo shakhsiyad qaali ah ay waxa laga yaabaa markaan hadda idinaado cali imaan sarkaal buu ahaa la yiraahdo qaarkood inay yiraahdaan maxaa idaacadda u geeyay waxaan idin sheegayaa markii isaga iyo laba saaxiib oo kale Axmed Cabdisalaan iyo Dulcad ay go'aansadeen inay shirkadda dhisaan oo halka yimaadaan muddo 18 bilood ayay Canada Academy saxaafadda u galeen oo ka duwan aqoonta hore u barteen oo ay ku kororsadeen dalka ay ku noolaayeen marka waxay ahaayeen shaqada ay wadaan dal aqoon u leh ma aha inuu ku ekaa askarinimadiisii madaafiicda goobta uu ku riday wuxuu ahaa shakhsi saxaafadda aqoon buuxda u leh ku dhex jirkii uu ku dhex jiray ee hawsha waday ee xilligaa adag ahaydna waxay bartay waay aragnimo ka duwan yacni aan odhan karo xilliga nabadda 40 sano waqtigii lagu dhaafi lahaa ayuu muddo gaabano 10 sannadood ku dhaafay marka waxaan odhan karaa idaacadda Horn Africa maanta marka loo fiiriyo idaacadaha Soomaaliya ka furan ee gudaha dalka ku yaala oo idaacada loo fiiriyo qaabka ama dawladda ha ahaato ama ha ahaado hay'ad garaabiya waxaan oran karaa waa hay'adda isugu duwan ugu urursan ugu dadaal badan uguna tayaroon baan oran karaa beelkeena waxaana keenay tadxiyadii ay saaxiibadaas u sameeyeen marka ma oran karo cali iimaan waxa uu ka dhintay qoyskiisa ma oran waxa uu ka dhintay Horn Africa shirkadda warbaahinta ma oran karo saxafiyiinta Soomaalida oo kaliya uu ka dhintay ma oran karo waxaan oran karaa wuxuu ka dhintay shacbiga Soomaaliyeed ee maanta dhibaataysan xubnihii ka fekerayay dhibaatada ay ku jiraan siday uga baxayaan kuwa ugu hormuudsan ayuu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa tiirarkii halganka madax bannaanida saxaafadda tadxiyo kasta inuu galaan uu heeganka u ahaa buu ka mid ahaa markaan halkan ka tegayo shirki ka laabanay waxaan wada aasaasnay ururka xorriyadda difaaca xorriyadda saxaafadda Soomaaliyeed ururka la magac baxay oo rag badan oo hadda halkan joogay aan malaynayo inuu xubno ka yihiin marka asaga iyo Mahad Axmed cilmiba ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo aan faataxada u marno muddo kooban in ilaahay jannadii ka waraabiyo dadka Soomaaliyeed bahda saxaafadda shirkadda warbaahinta Horn Africa qoysaskii ay ka baxeen intabana uu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo faataxa روديق قيتي هم كلها ونقول بيا وهنجعل هاي شيل اليرع أو داعية أو وتيك الدون أو حله وهل كان يصور موضة كنتي وأكون فرحية إن أنت أنا اليرع أو ما أنت هو هلن إن أي وقت قبطان صحافة الصومالي أي هل كان جوجان وأنا لي شيء عنو سنتي كن سيال بقول إيشان يتدوات كي برتميه سيايان كبير وزار دور فافين إلا هي هادنا مهنات كلام كرنا وأنا وقار بدل يدين كي كم دو قطع في ديانا نحل قاعدنا وأنا ويا أبو ولا حساون حل قاعد قار كين كلنا إنا هاي المدة اللي ندلو صعب برا بقار كود هذا هو قبطان sida anigu aan maanta idin hortaagnahay ayaan kuwa kale oo hortaagan ugu tagay meesha oo aan ku xirtay salaada saxaafadda
oo aan idhi ayaga kaga dayo oo aan tababar ka daba qaatay oo ay gacanta iigu hayeen waxaa laga yaabaa idinka qaarkiin markay ay yimaadeen goobaha idaacadaha ee laga hadlayo ama mikrofoonka dushiisa inay 2-3 cisho kadib hadleen waxaan xasuusnahay 6 bilood iskuulkii la oran jiray allaahida dugsigii ka sokeeyey macallimiinta afcabeedka dhiga ama maadada diinta dhiga lagu tababari jiray ayaana lagu tababarayay markii kadib idaacad joornaal maxay ahayd madbacad filmo waxna loo kala saaray kuweedii idaacadda la geeyey ilaa allaha ka noqdeen nin macallin iigu soo ahay iskuulkiina ayaa idaacaddana microphone trainer iigu noqday 6 bilood oo dambe ayaan subax walba waxaan duubayay barnaamij haddana waxaan duubayaa aanay waxba ka baxay oo aanu hawada gelay yacni ilaa xad la i baro markaan hadlo ee aan itemka warka akhriyo ee aan joojiyo joogsiga hakadka ama hakad meesha uu ku leeyahay aan joogsiga qaato respirationka sidaan u qaadanayo neefsiga sidaan u qaadanayo ilaa la i baro waayaan daro waxaan isleeyahay idinka in badan oo idinka mid iyo soomay marin laakiin maanta way garanayaan si ay u neefsanayaan inkastoo ay ahayd inaan annagu barno waqtigaa iska ay diiday xilligii qalabsan baa diiday laakiin idinkamaan baqaylin laakiin waqtigaa diiday waxaad ogaataan oo aad maanka iyo maskaxdaba ku haysaan xasan wuxuu yidhi markii arrintaasi isla daba dhacdo naxdinaha arkay baan waddada cagta soo saaray waddada in cagta loo soo saaro looga baahnay adoo halkaan iska marayaa gaarijuku siin kara waad dhiman kartaa cali iimaan ilaahay naxariista naasiya imaan axmed cilmi ma dhiman maanta qulubteeday weli ku dhex nool yihiin qulubteeday ku dhex nool yihiin xusuusteeday ku harayaan magacoodu waa sii jiri doonaa 11 bisha August oo kasta waan xusi doonaa haddii ilaahay raalli ka markaa ma dhiman marka inta gaarijuku siiyo aad ayar iska dhiman lahayd adigoo tadxiyo ummadaada u samaynaya dhimo marka waa inaad maanka intaa ku qabataa yaa qiimo badan labadooda wel waxaan rabaa maaha ciddaan la hadlaya xasan keliya yaan waxba xasan la fiirin maasajku idinkoo dhan buu idiin socdaa wel waxaa kaloo loo baahanya fiiri maaha inaan xasan la hadlayo maasajku idinkoo dhan buu idiin socdaa waxaad garataan ninka qaradlaha danta leh ama siyaasi ha ahaado ama qoladan xabadda iyo warloodnimada iyo caqaadicaldariiqa iyo ku noqday bahalkii ha ahaado ama ku siyaasi sheeganaya ha ahaadee ama kuwa noocaa siyaasiga isaga noqday ha noqdeen ya had iyo jeer shaqada aad haysaan iyo iyagu waa isu bisadii jir eeg madaxweynaad rabtaa inaad wax ka qabato ra-iisul wasaaraad rabtaa inaad wax ka qabato bodyguard buu wataa bodyguardka ninka ihi waxa la raaciyey ninkan naftiisaa la raaciyey ogoobay cid ka cadaab badani ma jirto qof noola soconaya naftiisa la raaciyey ya wuxuu rabaa ninkii inaadan u soo dhowaan adna waxaad rabtaa inay microphone sanka ka geliso ma garatay waxaad aragtaan meel laga cararayo oo dadku ka yaacayo ayaad arkaysaa mid kaamara wata iyo mid rekoor wata oo kusii hordaya sidoo malakumowdka dadkaani ay ka cararayaan isagu uu leeyahay gaashaan uu isaga difaaco oo bir xadiida ka samaysa macnuu saa maaha wariyaha waxaa soo baxa dhamacda kala dhex baxa dhacdada ugu doonaya laakiin waa maxay mas-uuliyadda ku saaran mas-uuliyadda ku saarani waxa weeye marka xaaladahaas oo kale aad ku jirto si taxadar badan oo suursuurin leh oo aad ku miisaanto ugana gudubto maaha inaad cidna raaligelinayso dhacdada adigoo sheegaysaa laakiin waxaad samaynaysaa midi xaggana af ku leh xaggana af ku leh ayay labadaas mid uun inaad qaado tahay mid walibana oo ku goyn karaa waxaa la rabaa inaad farsamaysato labadaas sidaad isaga leexin lahayd
oo meesha dhexda oo midadu leedahay aad isu taagi lahayd adugu xirfadaada shaqo iyo mihnadaada saxaafadeed sidaad u agaysatay ku xiran tahay lama rabo in caadifadi ku qaado lama rabo inaad noqoto nin wax ka dhaxlayaan inaad noqoto shaqadaada keliya adigoo eegaya marka waxaan leeyahay shaqadaa dhibka badan ee aad wadaan darteed qaar badan oo hadda nool baa dhiman doona qaar badan oo nool baa dhaawacmi doona oo caafimaad qaba lixaadkoodu laakiin waa inaanay ahayn wax mucjiso kugu leh wax mucjiso kugaa waa inaanay noqonin waad soo doonatay waad u bareertay jeclaa ummadaada kaa haysa iyo jacayl aad u qabto muhiimadaada dhex gashay waad u soo doonatay geesinimadaa ku dar waa inaad intaa u bareertaan idinkoo hubana aad ku shaqo gashaan sidaad uga badbaadi lahaydeen shaqada aad haysaanna ciidaan uga been sheegteen yaa dhacdad runana aad ugu tabin lahaydeen uma doona caadifadi ku dheeneen adiga shaqaynaya kugu xiranta annagoo sii gaboobay eeg maalintaan imid axmed cali askaroo intaani caddahay fooda horaa iyo yaasiinoo intaasi caddahay iyo mustafa xaaji cilmiyo intaasi caddahay mustafa xaaji nuuro intaasi caddahay ayaan ku xidhiiriyey adinku anoo intaani caddahay baad hadda igu soo xidhiirisaan aniga waxaan nasiib u yeeshay kansha aniga wax laygu baro inaan helo oo iyaga aan uga qaato cilmi laakiin idinku aniga inaad wax iga barataan maydaan helin waqtigaa isuka ay diiday waan ka xumahay laakiin carruurtaydan tirsanayaa diidtay haddaad tahay catoosh baa adeegsada maamaa wuxuu yidhi geeriyi nimaadan garanayn iyo gerjooga ku waxantahay gadaal baan keena catoosh waada gerjiro walaalkaa oo noqon karaa eeg soomaalida maanaadeeda xaasibnimo yar baa ku jirta ayada iyo markaay ku waranayaan wax wada qabo aad iyo wuxuu jeclaysanayaa haddii lagu goonta inuu lagu go'do waar tala maaha muslimka shaqadiisa maaha taas runtii mararka qaarkood laakiin way ku qabanaysaayo inanaan dhalay oo baydhabo markaa soo degtay oo curadaydii aad ay soo sheegtay cali iimaan geeridiisa taleefonkii inaan damiyowan kari waayo gacmahan ka dibid yaa qofku wuu dhimanayaa maalin buu dhashay maalin baanu dhimanayaa saacaddaana ma dhaafayo waxaan isku qanciyey marka cali iimaan inuu isagoo tadxiir samaynaya dhintay maali isagoo shaqadiisii gudanayay waajibaadkiisii wariyanimo inuu dhintay there is no reason waan isqanciyey marka adigu ha xadgudbin baan isku qanciyey markaa kadib baan qaatay taleefonkaygii oo dirsaday waxa keenayey waxa weeye laxa jeclayga haysa waqti baa galay dhaqaalaa galay isagii baa waqti badan iyo juhdi badan ku bixiyey waad ka naxaysaa runtii waxaan rajaynaynaa intaa waxaan uga bixi karnaa annagoo guntiga dhiisha isaga dhigna maskaxdayadana ku xidhra oo yoolka aan higsanaynaa noqdo ummaddan soomaaliyeed ee 17 sano ku soo jirtay dhulgariirka aan dabiiciga ahayn waxaana helay waa dhulgariir aan dabiici ahayn yaa dhulgariir aan dabiici ahayn baan helay markaasaan weli burburkiisii cid naga faagtalacnahay oo la hilaadnahay oo sidaa la rafanaynaa sidaan ummaddayada uga samata bixin lahayn una tusi lahayn waddada ay ku joogaan inay qaldan tahay in badanoo garanaysaa jirta laakiin garashadoodii baalinka ku dhacay awgood garan laa wadda ay uga baxaan dhibaatada marka inaan intaa waddada tusno saa dambe 100 tusno 100 kale maalinta kale tusno maalinta kale 100 tusno waxaan ku guulaysan karnaa dhowr gabdheer Soomaaliya ka mid tahay ay ku kooban tahay inaan waddada tusno laakiin marka hore waa inaan anagu qalbigayaga ka tiraa wax la yiraahdo qoys iyo reer hebel iyo hebelow iyo kan iyo dhalasho aan ka tiro oo dareenkayagu u gudbo ummadda Soomaaliyeed sidaan ku badbaadin lahayn u gudbo go'aanka markaan qaadano waan idin ballan qaadayaa inaynu gaarayno Soomaaliyeed inaynu Soomaaliyeed war sidaa ma yeelaa السلام عليكم معقول إن سويديسان ماشان وحماتنا كقطبيني طمر ربع كقطبيني أو طمر
وسؤال وحياة كنت أنا التي قلت عنك وحنا قصة دويننا هاتنا فنانة صومالية شمس علي معالم كلمة لما كلمة إيه ريال كان كترابه يسوقان تاني سلو عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورئيسة وعيد السلامي سلا بنتين صحافة هي مدحنا كسعطة بوضع فدرالكا dadweynaha ka soo qayb galay dhammaantiin telefishinka Universal waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xiga waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan bahda saxaafadda ehelkii ay ka geeriyoodeen cali iimaan sharmaarke iyo mahad axmed cilmi waxaan leeyahay allah u naxariisto صبر إيمان صادق أيقنا أهل الجنة الله كذبه وحي هيجين نحدله هو وحي كم ديهين بهذا صحافة فنانينتا تقيتدا هوايك وحي كم ديهين برمجيدة ضدك يعني أن لوحة جدبين مركا وحن لنا هي قدرك إلهنا لبدا فكر وقتك وهو قريبين وفضل بسيب جاي سببت كل ما نسا مدة الصومالية وحن لنا هي ور dib isugu noqdo oo waxyaabaha fiicnay dib uga fiirsada ka taga dagaalka gacanta ah asaga oo uu ka fiican yahay dagaalka afka ah iyo poliitikada afka laga hadlo intii gacanta laga hadli lahaa waxaan leenahay dadkeena idlaayay Soomaaliyeed isdaa
Still
kasoo baxday balantii daahir macalin qaasim xogiyaha guud ee jaariyadda waddanka kale gaar ahaan magaalada Nairobi waxaa la soo gaaray gabagabadii xafladda aan ku maamuusanay barodiqda loo sameeyay Dr. Ali Imaan Sharmarka agaasimiye idaacadda Wanafiq iyo agaasimiye Capital Face Socodka caasimada Mahad Ahmed Cilmi Ilaahay u naxariiso haatan waxaanu ku soo dhaweynaynaa daqiiqad iyo 2 daqiiqo wala ay murugaysantu ay ka sii muuqato si uu dhacan Falastiin Ahmed Xaaji oo la saaray gaariga Ali Imaan lagu qarxiyay inay halkan ma iyo laba kalmo Falastiin oo tara Falastiin meel qarsoon ay ka hadlaan dadka soo mahor istaagaan marka raali ahaadaan sida looga hadla igu adeegtaan xoogaa marka maadaama halkaan ay tahay meel xus ama loogu sameynayo barodid waa fiicnaan lahayd intaana kala tegin maadaama xafladana ay gabagaba tahay in qofkiiba 3 qol walla hadduu awoodo maaragta aan u aqrino marka Soomaaliya oo kale waxay u lamid yihiin dadka kale magaalada ku dhinta laakiin ayaga lama ogaado dadkan waxaa loo ogaadaa in meedihiina ay yihiin iyo laba inay yihiin dad ay bulshada ay taqaano adduunyada boqolaala ku dhimata waddankii wadamo aan dagaal ka jirin lagu dhintaa haddii ilaahay intaas ugu ekeeyo bahda saxaafadda runta Soomaaliya hadda xilligan aad ka shaqeynaysa waxaan dhihi karnaa ilaaha ma hadaas iskale kulay dhimashada inta dadkay u lamid yihiin iyaga laftirkooda howl dhib badan ay waddanka ka hayaan oo waddan dhibaatadaas ay ka jirto in qof guriyaha subax walba wixii dhacay uu sheego ma dhacaysa in marar badan lagu qanco ama lagu jeclaysto waana tan keenaysa in waayadan dambe dhibaataynta loo geysanayo wariyaasha laftirkooda ay soo badato haddii dhibaatada Soomaaliya ay sii jirtana way jiri doontaa inta shaqo ay jirto dhibaataduna ay jirto wariyaasha waa dhibaateyn doonaa marka aan kulli waa hoob adag waxaan dhihi karaa wax badan shaqada saxaafadda Soomaaliya ay ka hayso waxay aad u difaacday dadka rayidka ah ee magaalada Muqdisho international community Muqdisho laakiin meeshay ku ogaadaan in dadka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ay dhibaato haysato waa saxaafadda marka hadduu qof u dhibaatoobo ama u dhinto shaqada uu dadkiisa u hayo waxaan dhihi karaa qof tirintiisa jiifo waa uu dhiman lahaay wax fiican inuu qofkaas uu ka taga soo dadkiisa dhibaatada haysata ka sheekeynaya ama dadka uu tabinaya ama haddii wax uu ka qaban kara ka qabanayo intuu qofku dhinto kulley maalin buu dhiman lahaay waxaan dhihi karaa waa wax bahda saxaafadda ay dadka dheeriyiin waxaan u rajaynayaa wariyaasha gudaha Soomaaliya ka shaqeynaya kuwa dibadda joogaba kulley dad isiyaqaano waa bahda saxaafadda aqoon waaye ma aha in ilaahay uu ka nabadgeliyo dhibaatooyinka jira iyagana ay qaataan mas'uuliyadda saaran oo ah in dhibaatada shacabka sida runta ah ee ay u hayso ay ka soo tabiyaan waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantahay Falastiin Ahmed Xaaji wariyaasha idaacadda Wanafiq Capital Face Television Radio intaana u gudbin Sheekh Jaafar Xaaji Cali oo qodro soo afjaro xagga diinta waxaan ku soo dhaweynayaa gaashaanla sare Maxamed Jimcaale Cusubne oo xafladda samaysay oo ah gobolabka aad baad u salaamatay kulliga iyo wariyaasha iyo qolay kamarada iyo kulli aad iyo aad aan ugu faraxsanahay gobolabkan hadda la laabayo oo maanta ah oo ay sameeyeen qolooyinkan warfidiyaanada ama journalistayaasha ama qolooyinka idaacadaha ka hadla aad baan ama idaacadihii laftoodii kooxihii wakiilka ka ahay in sidaas si ka fiican aan isku soo xusuusto ama la isku xuso ama la iskaga warhayo waxda journalistayaasha ama wariyaasha ama raadiyo oo dhan oo saxaafadda oo dhan waxaan idinka codsanayaa inaad sidaas ayaad u socotaan waayo waxa weeyaan waxaad tihiin baarka muxuu ahaa seef labada dhinac dadka horcaya ayaa tihiin waayo waxa weeyaan waxaad tihiin maskaxdii shaandhaynta wararka oo kala qaybinaysay tii qaybinaysay tii xafidaysay tii ay nuuc ayaa tihiin waxaa loo baahanyaa maanta waqtiga la joogaa waxa weeyaan in aad ku socotaan hawsha midda saxa ah oo wanaagsan oo aan kabiya kaba dhibcaanka
oo aan qolana ku jeedin fi macnaa qolo waxaa ku jeedaa mabda'a markaas ama meesha aad ka shaqaynaysid dadka mas-uulka ka ah ama madaxda ka ah adigoo iska ilaalinaya xaggana ilaalinaya waxaa lagaa rabaa inaad iska ilaalisaan shaqadiinina aad si toos aad u fulisaan munaasabada oo qaaliga ah oo lagu barordiqaya wariyaasha inaan ka soo qayb galo oo weliba aan idiin soo gudbiyo risaalada islaamka qof walba risaalo wax xambaarsan yahay masjid carabi waxa lagu yiraahdaa ingiriis الرسالة أنا واحد هذا عربي marka risaalada aan xambaarsannahay culimada inaan idin soo gudbiyo waxa ugu horeeya waxaad ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan abuuray koonkan asagaana abuuray asagaana keenay wuxuuna noogu talagalay inaan khaliif ka noqono raallahaashadiisa aan ka shaqayno dadki markay ka leexdeen waddadaas ilaahay wuxuu ugu talagalay rusul buu usoo diray rususha waxaa ugu horeeyay nabiyullaahi nuux wuxuu ummaddiisa risaalada gaarsiinayay dhambaalka oo masjidka aad ku magacaawdeen uu gaarsiinayay 950 sano falabitha fiihim 1000 sanatin ilaa 50 caaman wuxuu gaarsiinayay ummadda inay ilaahay ka amar qaataan waddadooda ay raacaan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u keenay markay ummadda ay xoogahu gaabsataba oo waddadii ka leexataba ilaahay rusul u soo diri jiray ilaa lagu soo khatimay nabiyullaahi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nabiyullaahi moxamed waa khaatimu alambiyaai nabi ka dambeeyo soo baxaaya ma jiro laakiin waxaa la yidhahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay inay diintan sii socoto dad culama ayuu ilaahay u sameeyey alculamaa'u warahatu alambiyaai buu rasuulkeena yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayha culamadana kama dhaxlin ambiyada culamada kama dhaxlin shilin dirham iyo diinaar iyo lacag iyo dollar iyo waxba kama dhaxlin waxay ka dhaxleen risaaladii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay koonkan inuu gaarsiiyo waxaan u fadhinaa borordiiq ayaan u fadhinaa waxaan rabnaa inaan ilaahay isxasuusino ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaza wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta waxay dhadhaminaysaa geeri wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama ama ajarkiina iyo wanaaggiina iyo khayrkiina ilaahay baa idin siinaya ilaahay wuxuu ku gabagabeeyey faman zuxzixa cani innaari qofkii naarta laga fogeeyo o laga dheereeyo wa udkhila aljannata jannada ilaahay la geliyo faqad faaza waa liibaanay kaas waxaan ilaahay ka maryaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii liibaanay uu ku daro waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaana abuurtay koonkan asagaana keenay 3 su'aaloodaan rabaa inaan idiin dhiibo qof walbaba su'aasha ugu horaysa shalay adduunyada ma aadan joogin sidaan ayaga u dhisan tahay baa qof walbaba annaga naga mida dhashay adduunyada ma joogi jirin hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiran buu ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baana abuuray koonkan ma aanan joogi jirin ayadoo cabdina jirin maxamedna jirin jacfarna jirin xasanna jirin oo annagoo aan jirinba adduunyadaana joogtay maalin baan soo biirnayoo waan maqnayn xaggee ku maqnayn waa su'aal qof walba inuu isweydiiyo ma aadan joogi jirin hadda waad joogtaa waa timide maxaad u timid inaad isweydiiso waay maxaa lagu keenay koonkan ilaahay cirkaan muxuu u abuuray dhulkan aan ku socono ilaahay muxuu noogu gablay biyahaan burqanaaya barwaaqadan dhan muxuu noo siiyey barwaaqadan raaxadan ilaahay muxuu noo siiyey adduunyadan muxuu noo keenay ilaahay ma inuu nagu faano dad bini aadam la yidhaahdaan abuuri karaahay hallay arkamaya ilaahay u abuuray mise ujeeddaada naga leeyahay qof walba inuu isweydiiyo su-aasha adduunyada su-aasha labaad adduunyada waxaa lagu keenay inaad isweydiiso ilaahay muxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jinnigana ma abuurin bur ilaahay insigana ma abuurin ilaa inay caabudaan baan u abuurin buu yidhi inaad ilaahay ka amar qaadato noloshaada oo dhan markaad masaajid ku jirtaan aad wardiso markaad bannaanka soo joogtaan aad dembiga iyo waxa aad ku jirto ilaahay kuguma degan cibaadada dhabtaa waxaa la yidhahdaa noloshaada oo dhan qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku abuurtay wuxuuna kuu keenay inaad ogaato waa su-aasha labaad su-aasha saddexaad qof walboo annaga naga mida sidii mahad iyo walaalkeen hadda dadka aan u baroordiiqayna ay u baxeen ayaan u baxaynaa
qof wal anaga naga mid ah wuxuu aaminsan yahay sidoo adduunyadan shalay ugu soo biiray inuu berina ka baxay Soomaa qof ogeyn ma jiro xageen u soconaa marka oo su'aasha la isweydiiyo war xageen u soconaa qabrigan u wadnaa waan baxaynaa saacadan daqiiqada ka dambaysa inaad dhiman doona laga yaabaa qof walba meeshii Ilaahay ugu talagalay buu tagayaa maxaa lagu talagalay meeshaan u socono oo qof walba intii la geliyo ilka lagu soo aasaayo maxaa kaaga horeeya إلهي سبحانه وتعالى نبي صلوات ربي وسلامه عليه وحده القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار قبر وحو نقضى لبامد إنه بير جنة نقضى بير عذابات إنه نقضى إنه إلهي ما قد بير جنة إلهي كعسانينا مدكر عن إذي ويدينا وحال إلى نبي صلوات ربي وسلامه عليه أن بقى بقبينا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني العاقل رسول كوحير قفك عاقل كأوح قرناي عقل يسئنه كشق يرمو من دان نفسه قفك نفتي صلاح ساتما لنا نفتي صلاح ساتما وعمل لما بعد الموت قيري لي كنت ابن الشقية قبل أبو هرية دقل وحا لنا قفك نفتي سواء جعشها راعة وإلهي ما جن إسينا إسكبها أوصل شقي سنة كاس أيام دقنو يري وحن إلهي كبر يا نفتي نرى كلمتها عندها إنه إلهي نبو أنفعه إلهي أنت ماشي عن كل سنة إنه إلهي جلال نبو كل مية هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واجري عساد الله وين كسر شيخ إننا نقدر شعوبتكم عمل فشاد درس دينك قيمها وين قرض وين شيخ جعفر حاجي علي وحي كما كبوا هاي حفلة بروتين اللي سميني walaalaheen Soomaaliyeed ee Muqdisho lagu diray Dr. Ali Imaan Sharmaarke iyo Mahad Ahmed Cilmi meesha wanaagsan ayaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu geeyo waxaan idinku wareejinayaa yaad sugaysaan Cabdiyare معا وامنا هوي لغا أوراني هليو
هوي معا ومدا هوي لغا أوراني هيبد وحاد كل دحي دلكاغا هويو